حياتي قفك اسقو فيول سوقي حتى اسقو والان لو كبحايا دقنا مساكين تارك markay imaanayso wayel baa iska atay way toosneen qura hadartan markay qolkeeda aadaysa xataa garabta qona waliba iyadoo foorata qura waa la saaraa jarjarta ka waran barwaayi hooyo bise waa ku bari ajaayas inta hanooga ka arintan faraantiga dad doontaan wax nooga sheeg يا كدوري أنا حنا رجع ملك هم اللي رجع وحنا رجع عسيس إن أكتم بس واحد صوب نقول إيه كأني دونتو شكرا على عمري سألها نجارسي آمين أنكو أركل فيلك عصوبي عسيس دقيقة سوان داول لهم سودان محاك هذا صادقة حالة ضميرا ما أركل مياه من كان وفق والله محيطها هنا إيه دي سهر شكرا عليه أديك ماشي وقت كرسوت واحد وقتها هنا معها دتك واحد هان هدي أتركت ميل لقلق لا إيه أديك إيش على الاستراحة مركا ماشي عليه تيجي دتك جوجو وعدد والن أديك واحد قسمته والد من عادي إن أتكدش وأنا تقول أنا مالين هدي أنا لقى قيلين دتك وضع أمسنا تسمرالي مقارنة مركا قيل مركي أدمج عليك دربها اسكو كوسد دين عاقل لك إن أسواشه وتكو قسمته وهدي عافية ما دركت أنا عسيسه waan ogahay filan cusub in ay noo soo wado filankaas cusubna kulay waan sugaynaa waan iska daawan doonaa adigana waxaan ku dhihi lahaa kurbadana haba isgeelinin dadkan nooc ay yihiin noocaas ula noqo asmaaye qaxumaad ii keentid madaxa xoogaa ay xanuunaaye xoogaa waan iska xafladayn lahayn haye laakiin aniga warqadan waxaa jirin uguma jeedo waxuu soo qorayna wax unbuu isku dardaray laakiin waa mid dhibaato naga soo gaaraysa soo ma ahana dibka hooyadaa loo geystay ayaydaan waa loo geysan karaa halkaas maxaa ujeedaa ayada hoosta aad geshanaysa ayada wareyso aniga haddaad aaminin waxaa laga yaabaa ayada inaad aamintid marwa casiisa shalay haddii aad talin jirta maanta anigaa talinaayo hadalkan muxuu yahay ayadina maxaa ka qusay hadalkan ayada ayaa loo soo dhiibay qof ayaa damacsan ujeeddo gaaraa meelaan tayda iska badaaba maskaxdaada ka shaqaysii marwa shukraan ma adaa lugahaaga ku raadsaday mise ayagaa kuu tilmaama wiilkayga say dhexdeena annaga fidna ugu abuuraan ayay adiga arrintan waad iga qarisay qad ayaan gacanta ku dhigay balse sidee ku dhacday cadowgayga inay aniga nafteeda badbaadiyaan waan aamin lahay middaas aniga adiga bal fikir wiilkayga miiraan fikir intaasoo dhan waxay rabeen labadeen in ayna isku keydiyaan ay waan ku baryaa cagaweejis dambe ma u dulqaadan karo wax kale ma rabtaa darinaad iga dhadhiciso cid walba waxaad dushka saaraysa reeshaag oglow wax caddeenaya tus oo aan kugu aamini karo ilaa haddaan ku aamini lahay ayayo reeshaag oglow waa dad xun wayna aqli badan yihiin xaniifana arrintan ayaga ayaa soo geliyey dad walba waxay u soo adeegsadaan si ayaga aan loo dareemin waxayna ogaadeen aniga adiga xiriirka naga dhexeeyo adiga inta aan hor taagan tahayna lagama yaabo ayaga in ay wax naga qaadaan sheekoy ku nacay meeraan gabadhooda ayaga afduubta waxay rabeen dhexdeena fidin inay ka abuuraan ninka filibis la dhahayna ayaga ayaa soo dirsada waxay rabaan maskaxdeena anaga buuq in ay ku furaan halkan nin ayuu keenay haazaar wuxuu rabaa markhaati beena inuu furo laakiinse ninkii awood uu been ku sheegay ayuu waayey haazaar markuu halkan ka dhacayay intuu hortaada soo istaagay ayuu meeraan ayaa ay kala tuurso kuma dhihinna aniga horey soo kuguma sheegin warqadaha furiinka oo beenta adiga yaan rabin inaad ku kala tagtaan inay yaari soo saxiixday soo kuma sheegin aniga maxaa kaloo ku dhiman aniga aan ku caddeeyaa dhibkaan soo wada marna ayaa caddeen noogu filan wiilkayga yaamin waa ku baryaa hal mar oo keliya kalsooni igu qab aniga weligay hal mar ayaan been kuu sheegay taasna waxaan kugu sheegay in adiga aan ku weynin ilaa iyo haddana waan ka shalaynayaa intaan noolaa waxaan diyaar u ahay in qaab in la meersiiyo laakiinse mar raba adiga inaan ku waayo wiilkayga wayahaye si fiican ayaan kuu fahmay balse maxaad dhihi rabtaa furun kale cusub ka dagaalana haddana meeqa furin ayaad ii dirtay aniga midda keliya aan la yaabana waxay tahay mar walbaba waxaad ii diraysaa dagaal aan ku guuldaraysanaayo taasna wax sababa waxa waaye arrinta iga qarinaysid adiga sheekada idin waad iga qarisay aniga meeraan waxba kaama qarinaayo laakiin Aisha wax kaa qarinayso wax walbana waxaad ogaanaysaa maalinteeda markii la gaaro ayadaaba hadli doonto rayaan gabadhayda meeshaan maxaa ka dhacayana aniga cid wax ii sheegaysa ma lahan maxaa dhacay ii sheeg miiraan ayaa waxba kuu sheegaayay adiga ismurjinin oo keliya maxay tahay arrintan farantiga ee la sheegaayo qorshaha xigaan oo digirtan maxay tahayna adiga mar walba waxaa rabtaane aqliga meeraan inaad ku ciyaarto waa ku biyaa soo majidno adiga sida u dhibaataysan meeraan farxadda miiraan miyaad adiga danaynaysaana haa dabcan waa danaynaya maxaa yeele waxaana qoyska adiga dartaa u kala daadaatay maalin walbana adiga madaxaada ayay dhibaato noo soo gaartaa adiga kaale meeraan midnaysid miyaana galoolay waxba isdaalinin adiga waxaad iska dhigaysaa qof miiraan ka naxaayo laakiin kama naxaysid naf jeclaysi keliya ayaa taqaana mar walbana waxaad ka fakartaa nafsadaada miiraan hadday dhibaato haysato qofka keliya saameynaysa waa aniga markaa iska dhigin naag miiraan ka fakaraysa afaariista dambana soo gelin adiga maxaa iskaga dhigaysaa qof wax walba og arrintan cadgoosiga ama waxaa u malaysaa adiga iyo qoyskaada iyo meeraan oo keliya inay dhibaataysay sidaas ma ahan anigaba aad iyo aad ayay ii dhibaataysay dhibaatadaasna ilaa hadda meesa iga harin naf jeclaysi ma dhahdayna taasi naf jeclaysi lama dhaho cadgoosigana meeraan oo keliya imuusa dhaafsiinin waxyaabihii hore la soo dhaafay iyo waayihii dambe isbabedelaay ayaa aniga nolosheedu dhan dhaafsiisay way fiican tahay waxaad la xisaabtantaa waxyaalihii hore adiga saameynta aad ku yeelatay qofkii ka dambeysay ee aniga la xisaabtamin waayahay waan samaynayaa qof walba nolosheeda dhibaato u geysta mise saameyn yar ku yeesha waa la xisaabtami doonaa
miiraan xaaladaas okay maahan adiga iyadana maxaad sadhahdeenna waxaa laga yaabaa rayaan aabbaha hadalladiisina saxnaayeen wuxuu igu yidhi waxaa macquul ah cadow kale inaad leedihiin haddana waad aragtaa warqado kale ayaa na soo gaaray waxaan la yaabanahay yuu yahay qofka warqadaha noo soo maxaad ka gaaray wadaana iyada macalin jibriil inay soo hanjabinaa war iyada casiisa wax walba ayaa ka suurtoobay inay samayso miiraan sidaasa samaynin waad ogtahay dadkaas waraaqadaha soo diraa garab ayay nagu siiyeen iyada xataa inaan helno waan ogahay rayaane waan ogahay warqad kale ayay u soo dhiibeen waxayna dhaheen ayayda kale gacanta ka saar waana kana hadda way u soo dhiibtay bal fiiri marwa casiisa waqtiga hore haddaad tali jirtay maanta aniga ayaa steerinka qabanaya hay waraaqdan iyada maaba gacanteeda ku dhiibtana filibos ama arrimahan wax ka ogyahay asaga waraaqdahan markuu soo diraayo mawduucan isma bedelaya qarsoodida wuu ku sii jirayaa ilaa aan ka ogaanayo qofka warqadahan soo qoray qofka uu yahay maalintan ogaadana jawaabo badan waa suurtagal in aan helo inta ka horeyso baaritaankii waan sii wadayaa ayay waan u tagaya hadda waan weydiinaya waxay ii sheegtana waan ka dhegeysanayaa aan warkiisa diiday mala dadko dhan waan wada dhegeysanaya ken waa ku baryaa miiraan istaag iyada hadalla dhibaayo hadhihin waa ku baryaaya iyada ma aan sida marwa casiis oo kaleeto codkeeda qof walba iskaga dhici karta aniga ayayo ma laga yaaba hadal murjiye inaan ku dhaho waxaan kaliya ogaanaa sababtay warqadan igaga qarisa waxa ay tahay sababkay maaha wiilkayga maxaa dhacayna arrintan farantigana maxaa waayana arrinta dirishaa miyay qusaysaa ayay fariintan adiga ma iyadii kale u keenay ha anigaa siiye yaa ku sii adiga ma ii sheegi kartaa aniga cunug yar ayaa ii imaadee ilbaabka markii aan ka furana warqadan ayuu gacanta iga saaree wuxuu dhahay wiilka ayada u taa adiga waad arkaysaa laakiin warqadan casiisa islaam bayd waa inaad u geysaa adiga arrintan cidna uma sheegi kartid ayuu igu dhahay aniga waan fahmi waaye laakiin aniga magacaaga markii aan maqlay waxaan sameeyey waan aqoon waaye kadib waan ka daba cararay aniga laakiin waan gaari waaye waayahay wiilka sida u ahaa ma ii tilmaami kartaa dhirir ahaan intaas ayuu la ekaa wiilkayga intaas timihiisa hore ayay usoo baxsanaayeen wuu dhiig furnaa wejigiisana nadiif ayuu ahaa waxay ku sheegteen wiilkayga magacayla ii sheegtay waxay tahay afduunooyin caawi anna intaas kadhan waa shaga hadli weyni wiilka wax kale ma kuu sheegayay wuxuu dhahay miiraan sug oo keliya wuuna baxay asaga wiilkayga aniga cidna uma sheegin waxaan ka cabsaday casiise inay maqasho kadibna ay ku dhibaatayso adiga ayaan kuwa cabsaday aniga waxaan sameeyana waan aqoon waaye kadib maalin qof ayaa ii imaaday wuxuuna igu dhahay wiilka ayada u tahay wuu kuu imaanaya aniga marka midaas maxaan ku diidayaana haddii la dhihi lahaa gacantaada iska jara iska tuur waan iska tuuri lahaa aniga inaan warqad casiise siiya agteeda waxba kama aheen ayay waan ku fahmi karaa wax walba adiga aad damacsan tahay waan fahmi karaa waxaad la jeceshahay aniga wanaagayga balse maxay tahay sababta fariintan igaga qarisay ma habbooneen in aad iga qariso wiilkayga waan cabsada aniga weliba waxaan ka cabsada adiga inay ku dhibaateeyaan miiraan way caddahay ayaga waxay ogaayeen ayada inay ku raadinayso sidaas darteed ayay waraaqdan ugu soo dhiibeen waayo qofkan maxay ugu soo dhiibi waayeena xaniifa samahana xaniifa naagan la heli karin waaye teeda kale arrimahada markaan u sheegay way isbedeshay caadi maahan qoftaas aniga waxaan ka cabsaday wadnaha inuu istaagay arrimahada markay maqashay waxba kala sidaran waxaa fiicnaan lahayd meesha adiga inaad joogto wax walba ayaad ogaan lahayd markaas moogtahay kulama kafta maayo waan ogay ha maya mid kale aan kuu sheegay filibos meesha bioglo gordhow uu gaari rabaa wax walbana waa la ogaanaya markaas sida adigaad sheegteen filibos anaga inuu noo imaado wax fiican ay ahayd mideeda kale lama filaanka isbitaalka qusay adiga ma sheegaysid miyaana ha hay waay kama weydiinaya mar dambe beri waxaan isla cirabnaa sodogayga iyo saydigayga waxaan kusoo wareegi rabnaa hoteelada wax walba markaas way hagaagayaan dhigaya noqonayaan markaas wax walba aniga waan la wareegayaa ha maya reesha doglo warkaas waxa kama oga xabsan waayahay aniga midaas waan filaya balse maxaa sheegi doona oo weliba waxaan oo sii dhiman dad kale inaan sii sheeganaa waa beelo haysraacda diidaya haysraabsteedaa maxaa dhahdayna miiraan ma ogaadayna farantigan aniga lii sameeyey ma ogaaday kolay wuu ogaaday laakiin kalama caddayn kara inuu aaminahay iyo in kaleete maanta uu imaanaya runta iskaga sheegi lahaa waxaa macquul ahaan leed xilligan inuu hadalkayga aamino maya aniga waan ogahay qof walba qofka u dhow dartiis marka uu been sheego dhibaatada ay leedahay maxaa yeele ilaa iyo hadda xanuunkaas aniga ayaaba dareemayo maxaan sameeyaa wax walba waxay leeyihiin sabab ay ku dhacaan sidaan hore kuuga sheegay haddii aad aniga iga soo dhici lahayd waxaa macquul ahaan lahayd farantigan dhibaatadan dhammaadkeeda inuu noqon lahaa marmarka qaarkood qofka biniadamka sugas wax saxan sameeya iyo wadana qaran heli runta mudan ansar aniga aabbahay aan codsi kaaga wadaa wana way qalad inuu kaa galay laakiin waxaan ka baryana iska cafiso astaqfirullah horta aniga abalka dii gashay maahan midaan gudi kara laakiin codsi waa aabbahay ma iska cafiya aniga macalin jibriilna aad iyo aad ayaan u jeclaa aad ayaad u mahadsan tahay laakiin dhegeyso maanta wixii ka dambeeya aniga ma jirto qof biniadan aan ka cabsanaayo ama i cabsin karo micnahayga qof lagu cabsinaya adduunka maba ii joogabo aabbahay oo danbeeya alla u naxariista waa u dhintay laakiin adiga calol fiican ayaa ku miiraan iyo rayaan ayaan arkay waa dhayman
mahadsanid mideeda kale marwa casiisana igana noqon haysan xumaan halkayga ha u fahmin waa qof aad iyo aad u xun intaysan markhaatiyaasha halaalo u dhammayn waa inaad ka hortagtaa haddii kale waxay dhibaato u geysanaysaa miiraan iyo aabe waxaan ku sheegi maanta filibos ayaan la kulmay filibos maxuu ku dhahay muxuuse soo doon ii sheeg rayaan ayaa dabagal waxay ku samaysay faraantigii aniga desha aan u samaynayay rayaan macalin jibriil iyadoo soo arkay ayaa waxay tiri aniga ma soo arkin ka waran mideed kale macalin jibriil naftiisa casiis aslaan bay ayaa u hanjabtay wuxuuna dhahay faraantiga aniga maxamed ayaan u sameeyey ee hazaar uma aanan samayn gabadheedan aniga ii cabsanaysa iyo maysan sheegin idhigeys wiilkaygu waxaa kuu wanaagsan adiga in aad wixii hore askataysid gabadhaydana u sheeg wixii hore faraha ka qaato warkayga ma fahamti hore waxaa loo qashina daaqodeed ur unbaad ugu tegeen maxaa dhacay aabo casiis aslaan bay beenteeda maalin walba qayb u socdaanaysa miiraana runta ayuu ogaanaya mar dhow kadibna cadaawad naga dhigaysa dhamaanaysa iska daay maxad ka wadaana idhigeys wiilkaygu horena waan kugu sheegay aniga ninka la yidhaha filip xitaa haddoonan dhihin hasaar ayaa faraatiga codsaday rayaan ayaa wax walba go'aaminaysa laakiin eygaas xunka oo miiraan la dhahayo oo casiise dhegiisa ay qashinkii wasaqday ka buuxeen filip iska daa dishaad xataa haddii qabri ka soo baxdo wax uu aaminayo ma laha aniga ma rabo meeraan aan wax u caddaynaa intaas leedahay inaad halis aad gashay hadda kahor waad ogtahay halis aad gashay meeshaad gaartaan waad la socotaa waaya aabo waayahay gool ayaan soo fiirinaya haddii wax soo kordhaanaysa waa xigtaa garabkaaga laa galo idhegayso sida aan jeclaa warkayga waad maqashaan malaynaya